السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka aad naga daawanayso waa Macalin Muuse official channel. Aniguna waa Macalin Muuse. Maanta barteeda aan ku leeyahay YouTube-ka ayaa waxa aan doonayaa in aan idin la wadaago sheeko mudan in lagu cibra qaato. Wax walba waxa ay leeyihiin cibra qaadasho walaalayaal. Xikmad iyo cibra qaadasho ay leeyihiin. Sheekada tani maanta waxa ay ku socotaa dumar ha ahaado ama rag ha ahaado qofka aad u dhageysto heesaha iyo munkaraadka gaar ahaan heesaha dadka dhageysto dumarka aadka u jecel heesaha ragga aadka u jecel heesaha iyo musiga iyo waxyaabaha cantara baqashka ah walaalayaal qisadani waa qisad dhab ah oo dhacday waxa ay ka dhacday dawladaha Carbeed mid kamid ah waa gabar yar oo da'adii 18 ilaa 20 jir ah waxay aad u jeclayd dhageysiga heesaha habeenkii salaada cisho kadib qolkeeda ayay gashay waxa ay dhigaha ku suuratay samiicadihii waaweynaa markaasay waxay bilowday dheel waxa ay ku tuuratay fanaankeeda ay jeceshahay oo ay aad u xiiseyso heesihiisa ayeeyo oo waayeel iska ah oo reer cibaade iska ah ayaa waxay ku tiri gabadheediyay maalintaada aakhirkeeda waxaad ka dhigtaa inaad ilaahay u dukato laba rakac oo sunno ah ka dhig maalintaada khitaamkeeda ay ku seexo intaad ku seexan lahayd heesahan iyo munkarkan iyo musigan dhig jalaq uma aynan siinin walaalayaal gabadhii musigadeedii hooleheedii adduunyadii oo dhan ayay qafle ka tahay way daashay gabadhii iyada ahayd way daashay walaalayaal markii daashay kadib ay dhigihii iska bixisay timihii furtay jiifaal isku diyaarinaya markaan waa la daalay daaqadii fiirisay waaba iyadoo furan daaqadii haway ka qaadanaysay way furan tahay daaqadeeda misane daaqada ayay u kacday si ay u xirto ay u soo laabato oo ay u seexato daaqada waxaa ka soo baxay cayayaan buubuubo oo yar oo xasharaad ah oo buubuubo ayaa daaqada ka soo galay markaasaa sidii isagoo u socdo oo kale falaar la soo gamay oo kale ayuu sida uu u socday oo uu u xiimayay ayuu dhigta ka galay dalaq hadafkii uu abaaray dhigtii uu galay meeluu fadhiistay mana baxayuu jiray intana uma socdo gudahana uma sii galaayo dhigta godkeedu fadhiistay markaas dhawaaq jiiqaa oo dhan xanuun gabadhii qaylo ayeeyadii soo baxday gabadheedii maxaa kugu dhacay maxaa ku helay hooyo war ma jira ma hadli karo bahala dhigta iga galay wuxuu yahay ma aqaan waxba dhigta iga galay wii uu ku dhaxleeyahay dhigtiida maskaxdeeda meel walba qeylinayso dhawaaqayso war hala dalbo ascaaf degdeg hala dalbo ascaaf hala dalbay gaari alla keenay ordaayo gaarigii ay war isbitaalka loola cararo isbitaalka loola cararay gabadhii iyada ahayd dhaqaatiirti la isugu wacay kalkaaliso dhakhtar cid hartee ma leh gabadhiya isla markii check up lagu sameeyay computer saar dhigteeda hala baaro dhakhtarkii wuu qoslay wixii kalkaalay meesha joogo dhan way wada qosleen gabadhii inta xanaaqday ay waxay tiri idinkana ma qosleysaan anigana xanuun miyaan halkan la fadhiyaa maxaad ku qosleysaan meeshan wax lagu qoslo ma yaalo markaasuu dhakhtarkii wuxuu ku yiri haddi nafsak isdaji waa basiit insha Allah ta'ala وصرصور واحد اكتاد قالي وبهال يروى عيان خفيف فضل سي فضلهم كسو بحنينا مشكلة بلهن وحبها عرونها اسوال دختركي هوشي يدا اهد وافضل دستي ولا ليال كدب واحد عي wuxuu isku dayay dhakhtarkii wuxuu soo qaatay aalad lagu soo qabto dhigta uu galiyay inuu soo bixiyo isku dayay suuf ayuu qooyay daawo iyo waxbuu ku soo geliyay waxa soo raacay luga soo go'day xasharaadkii ama bahalkii ku jiray lugtiisa soo gooday haddana mar labaad uu ku dayay baalkiya soo go'ay baalkiya go'aayo markaas wuxuu yiri ordo bax gurigaaga iska tag dhakhtarka ee loogu talagalay ee mutakhasiska specialistaha markuu yimaado subaxda kaali soo noqo sideen ku aadaa gurigaaga xanuuna ihaaye maba dhaqaaqi karabo xanuuna ihaayo markaas wuxuu yiri hadaba ana tala ku hayo idageyso waxaan sameynayaa waan ku durayaa daawo oo xanuun joojiyan ku durayaa oo xanuunka ka celiso bahalkana uusan dhaqdhaqaaqin oo soo xiso ayaan ku siinayaa gurigaaga aad subaxdii imaam gabadhii way baxday
gurigeedii tagtay subaxdii la soo noqday dhakhtarkii specialistiga yimid waa la isku dayay muxaawala la sameeyay bahalkii waa laga soo saari waayay gabadhii iyada ahayd waxa la yiri 5 maalmood kadib kaale soo noqo 5 maalmood ayaa dhamaatay gabadhiina iyadoo xanuun uu ku hayo dhigta 5 maalmood gudaheeda waxa bilaabatay si tartiib ah tilaabo ah gabadha in ay wax maqli weysaba marka dambaba oo ay aragto dadka afkooda dhaqaaqayo oo kaliya waxba aanay arkeenin way yaabantahay gabadhii ilaahay barisa markaas ay tiri ilaahow markaan la ibadbaadi anana mar dambe u noqonaynin ay taagan tahay 5 maalmood dhamaatay isbitaalkii ku soo noqotay dhakhtarkii loo soo noqday dhakhtarkii muxaawalo kale sameeyay sidoo kale 5 maalmood kale kaale haddana dib haddana loo dhaco 5 maalmood kale haddana ay guriga soo joogtay haddana way ku soo noqotay marka dambe wuxuu yiri waxaan sameeynayaa operation qaliinan kugu sameeynayaa hal kale ma lahan waa inaan dhigtaada qaliin ku sameeyaa bahalkan aan saas kaaga soo saaraa hal kale lagaaga soo saari kara ma lahan gabadhii way yaabtay waxay tiri 5 biri kale isii jaanis 5 maalmood u dambeysay isii qaliin hay ugu sameeyeen qaliin mar rabe way baxday gabadhii way noqotay gurigeedii aaday 5 maalmood kadib way soo noqotay ilaahay wuxuu qadiray in lagu guuleysto marka waa lagu guuleystay gabadhii markii lagu guuleystay kadib alxamdulillah way baxday gurigeedii iska tagtay si tilaabo ama tadriiji ah ayaa waxa uu soo noqday maqalkeedii kadib markii ay ku sigatay in ay dhiga beesho oo ay dhagool ay noqoto si tartiib ah aayar ayaa maqalkii u soo noqday maqalkii markii uu soo noqday kadib gabadhii waxa ay aqoonsatay oo ay ogaatay in ilaahay subhanahu wa ta'ala imtixaan xaqiisa uga yimid oo iyada lagu baraarujinayo hurdada ay ku jirtay looga kicinayo in ay tahay ay aqoonsatay maalintaas wixii ka dambeeyay waa ay toobad keentay gabadhiina waa ay wanaagsanaatay gabar fiican ay noqotay oo ilaahay ku xiran subhanahu wa ta'ala heesiina halkaas ay uga tagtay iyo wax allaala wixii munkar ahaayo dhan haddaba walaalayaal maxaynu ka faa'iideynaa qisadan oo cibra qaadashada noogu jirto maxay tahay waxa ay tahay cibra qaadashada noogu jirto waxa munkarka ah adigoo ku jiro haddii musiibo ay kugu dhacdo waa musiibo la kor saaray marka waxa wanaagsan dhigaheenna aniga iyo idinkaba dhigaheenna mar walba aan barno dhageysiga quraanka kariimka ah dhageysiga waxyaabaha wanaagsan ee muxsinaadka ah ma ahna munkaraadka heesaha musiga waxyaabahan cantara baqashka ee aan faa'iido noogu sugnayn bal iska daa inaan faa'iido ka helnay dambi aan ka heleyno miisaankeena dambiga badinayo aan raadino wax mar walba miisaankeena xasanaadka badinayo walaalayaal intaasina waxa ahayd dardaarinkayga haddii aad tahay qof nagu cusub channelkeena ku cusub waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa in aad subscribe-ka nagu caawisaa share gareysaane si ay u gaarto in badan oo dad badan oo dhageysta heesaha si ay uga toobad keenaan ayna uga haraan dhageysiga heesaha waa anigoo macallin Muuse oo idin leh salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu walaalayaal